السلام عليكم soo dhawaadayaashan sharafta leh hadii aad ka mid tahay dadka xiiseeya sheekooyin kala duwan adduunka daafihiisa ka dhaca channelka ayaa ka heli doontaa si aysan kuu dhaafin wax kasta oo cusub subscribe dheh gambalaalka furo like share ha ilaawin qisadana maanta waxay ka dhacday wadanka Sacuudiga waxaa jira nin la yiraahdo Bashiir oo u dhashay wadanka Suudaan Bashiir daruuf ayaa soo wajahday maalmaha kamid wuxuu ku fikiray inuu ka tago wadanka Suudaan laakiin ma jirin dariiqad uu ooga tagi karo wadanka لأنه واجه هر السعودية ضدك ربعا إنه شقيان أيك سود البنشر أيك جيسي شر كفيلة كان قنشرين سيدا هذا واحد كست أفضل ذان 100 سنة مركن نين كان بشير لي روح صاد البضيء وحرات سنة 100 سنين لكن وحكو فكري إن أولوكتي سمعله أو سعودي وكوجله تهريب بشير وحكسو تودن كيسا وحصامر إثيوبيا وحصامر جيبوتي وحكا دعي يمن وحكسي تجي wadanka wuxuu ka galay xuduudka Yemen iyo u dhaxay Sacuudiga Bashiir wuxuu ka bilaabay magaalo la yiraahdo Qamis Mashaad Bashiir tuuladii ayaan joogay Suudaaniyiin kale oo la joogay maalmaha kamid ayaa waxa imaatay duq cajuusa oo raadinayso maxallidaha nin u ilaaliya ariga marka Suudaaniyiinta shaqada ugu badan way jiraan kuwa mutacallimiin oo waaw ah laakiin badankoodu waxay Sacuudiga u ilaaliyaan xoolaha geela ariga waxaas amal u xanaaneeyaan maadaama dad xoolo dhaqato u badan yihiin marka halkaas duqa imaatay waxaan raadinaysay raaci ama qowsaar way wadatay Bashiir ee heshay Bashiir uu raac duqdii duq iska qalbi furan waxay ahayd oo bashaashad ah duq waayeelan ah Bashiir wiilkeeda camal ay ka dhigatay qoyskii oo dhan gabdhaheedii iyo wiilasheedii kala aroosay way ku aamineen nin fiican oo hooyadeen heshay raaci fiican ee heshay raaci ka taxadaraya heshay baabuur yar ay ariga ku beec geysatay ee qabi jirto oo wadi jiray arigu la beec geeyaa uu la soo celiyaa adi axwaalka familiga dhan wuu ogaa Bashiir duqda lacagta soo gasho xoolaha ay beeciso intee ka soo gado intee ka hesho waxa soo dhan uu la socda Bashiir maalmaha kamida asoo joogiisii adduunyadiisii xoolihiisii duqdii iyo meesha joogu u saxan yahay ayaa shaydaan u yimid shaydaankii Bashiir dhagta wuxuu ugu sheegay maxaa saxarahan ku joojiyay iyo kuleelkan iyo rafaadkan iyo erisir maanta oo dhan soo gadgad iyo soo celiyo cawskeen maxaa jiro duqdan lacag ay haysataa lacagta ka dhac kabacdina wadankaaga lacagtan aad kuugu anfacay المهم Bashiir fikirka shaydaaniga ah oo shaydaanku maskaxdiisa ku soo riday wuu qaatay wuxuu suubiyay duqda furahii gurigeeda dhan oo intuu qaato soo sawirtay wuxuu ka soo subsaday furo kale cidii u tagay wiilashii u tagay oo duqdu dhashay iyo duqdii wuxuu ku yiraan waan baxaa familigeygii iyo Suudaan mashaakil ka jira inaan baxaan jeclaystay macsalaam Bashiir waa la macsalaamay hadiidiisa la siiyay ماشي الرب إنه بحب بشير ما أوصى بحن وحوت تجي تولا كلا ودو خمس مشاد مرك بشير سببته عدة إنه دعف فكرة دم وحيات إنه عدة يرى مع سلامه ساعة سجى هادو تدي الله سو تهمين وتولا كلا تجهرو تندق الأصول نقد ما دام أفرها جورج صورته بشير سيد سوبيي هذه لبا أسبوع كبعد وصال لابتي جورج اسكفري أيدي مسكينتي هذا وقالي أسقوا لابتي لعقتي ذهب كي حدا أي سو كعد دق دوايش آد madaxa bartamaheeda oo ku dhuftay madaxu ku dhuftay duqdi way dhimatay Allah yarxamaha Bashiirna meesha ka carar dahabkii hantida wuu qaatay isla xuduudka oo ka soo galay Yemen iyo Sacuudiga inta u dhaxaysay xuduudkaas uu ka baxay Yemen oo diyaarad ka sii raac maadaama lacag haysta wadanka Suudaan uu ka degay lacagtiisii iyo dahabkiisii ilaa wax dad laga xado baraka ma lehe wayba kala haadeen ba meel ay ka baxeen ba adka la sheeg 4 sano ka bacdi Bashiir lacagtii oo ka dhamaatay duruuf adaga soo wajahday waa nin xoolo muslim iyo dhiig muslim isku darsaday uu soo laabtay wuxuu ku fikiray fikradii oo kale uu u bogo mashruucan uu soo laabtay dariiqiisa dheer oo soo maray Sacuudiga ku soo laabtay wuxuu tagay tuulo u dhow Qamis Mashaad ma ku noqon meesha duqda ka dilay المهم wuxuu u tagay isla sidoo kale duq ayaa ka haysatay laakiin duqdaas waxay ahayd duq aad u caqli badan Bashiir badana ma hantideedii iyo waxeeda dhan way ka ilaashin jirtay waxay meelaha dhigatay iyo duq waxeeda adi isku kooban maaragtay si duqdii horanta ay wiilkeeda ooga dhigatay duqdan ooga ma dhigan fursad badan ma aysan siin Bashiir oo wax kasta ku ogaan karo Bashiir markuu duqdii fiiriyay wiilasheedii fiiriyay cidii isaas oo u fiiriyay wuxuu sir cidaan sidii cidii hore uma dagna waxna kama qaadan kartid duqdaana ma dili kartid wuu ka tagay wuxuu raadsaday cid kale u tagay cid family caadi ah oo maaragtay wiilal iyo gabdho iskugu jiray hooyadooda aabahooda u tagay halkaas dhowr bilood qowsaar ka ahaa dhowr bilood ka bacdi waxa isku qeyliyay ninkii
faamiligaas aabahood iyo Bashiir ayaa khilaaf dhexmaray way isku qeylsheen buuq iyo qeylo ka bacdi Bashiir shaqadii ayaa laga buriyay Bashiir marka wuxuu ahaa dadka xaqadka badan leh yani dada waxa jira markay is dagaalaan dagaalkii hadda qofna uu ilooba qofna weligiis ma ilooba dagaalkaas marka Bashiir wuxuu ahaa dadka gocashada badan la waxir ka bacdi wuxuu soo gocanaa dagaalkii shaqada laga buriyo shaqada u baahnaa duruufta hayso wuxuu ku fakiray ninkan shaqada ka buriyo hadad inta caaw u tagtid naftaba dhaafisid ka waran Bashiir fikriga shaydaaniga ahaa shaydaanka ku caawiyay wuxuu soo qaatay faas albaabkii ciduu soo gargarac mar ay waqti dambe ahayd aabihii guriga faksi saamarku ugu furay maskaxda bartamaheeda ayuu saafkii uga dhuftay faaskii uga dhuftay odayga guriga meeshuu ku dhacay islaantiya soo ordo oo odayga soo noqo waa istiri qajaftana maqashay ayadana madaxa bartamihiisa ku dhuftay meeshii ku dhaceen wuuna ka tagay Bashiir xaqadkiisii ma joojinina meeshii duqdii uu ka soo tagay ma ayaa hore oo fursada ka waayay inuu wax ka xado ayuu ku laabtay ayadana sidoo kale albaabku u gargaraacay ma ahana wuu ku jabiyay waliba ayadana madaxa bartamihiisa ayuu ku dhuftay maxalida wuu dila duqdii gurigii hantidii wuxuu meelaha yaalo dhawaayo ka xaday wuuna ka tagay isla markiiba cidda odagii iyo habartii la dilay wiilkooda soo baxay oo ilmaha ugu roona wuxuu arkay hooyadiisii aabihiisa oo meyd ah oo yaalo guriga iridiisa askaru wacay askartii imaatay cid dariska u tagay askartii la isla wada wacay way imaadeen odagii habartii meydkoodii waa la diday baaritaankii bilowday wax yar ka bacdi askartii hadana waxa soo wasalay in meyd kale oo xaafad kale yaalo wiilkeeda ayaa guriga tagay hooyadiisa meyd u arkay askartii u sheegay marka meydadkii iyo qaabka loo dilo madaxa laga wada dilo wuxuu isku ekaadeen almihi wax badan la raadshay ayaan ka bacdi markii la waayay wixii dadkan dilay kulli inuu hal qof dilo waa la ogaaday wax dilay markii la waayay meydadkan way dhinteen odagii habartan ma sheegi karan inuu Bashiir dilay wayba dhinteenba ayadoo meel loo raac leeyahay waxa dadkan laayay oo dadkii dhamaama arkin oo ay qaateen ihtiyaadkooda ee iska ilaalinaya wax kasto oo la cabsanayo tuulada cabsi ka bilaabatay ayaa maalmaha kamida dad tuuladaas tuulo u dhow degan ayaa waxay maqlaan habeen kasta qof qabuuraha ka soo baxay ama qabuuraha galay waxay arkaan qabuuraha dhaqdhaqaaq badan ka jiro maanta dhan wax la sii socdo wax la soo socdo qofka qabuuraha gala qofka ka soo baxa qof waxba qajifle ma ahan yani qabuuraha meyd waa la keenaa dadka qabuuraha ilaaliyeen maanta dhan qabuuraha ma joogaan yani kormeer ku suubiyaan wayna ka tagan di wax siyaadaha doobahal meyd fag waxyaabo saas waa la ilaaliyaa laakiin sida had dadkan qofkan imaanay qabuuraha ugu badbadan looguma badnaan jirin almuhim dadka oo tuulada way shakiyeen maadaama cabsi jirtay oo tuulooyinka dhan warkii gaargaaray askarta ayay u waceen askartiina meeshii imaatay waxaa laga helay Bashiir oo ku dhex dhuumanaya qabriyadii heestana dahabkii yaraa iyo lacagtii xoogaaga islaanta ka soo xaday islaantii dambe Bashiir waa la qabtay markii la qabtay askartii kaxeeyeen waxaa la damcay in laga qoro magaciisa iyo waxaas ninkii askariga ahaa oo daabidkii qorayay dambiga mar alla markuu qalinka gacanta saaro qalinku ka dhaca kaana inuu qof ka qaadayo qalinka camal qalinka gacantiisa ka baxa markii dambe askartu way fakareen inuu ninkan Bashiir ah sixirooyo oo sixir isticmaalo almi Bashiir waa la qabtay waa la barbaaray sixirka intoo gashta mataqaaniin korkiis intoo kala jeexo wuxuu ku soo tashay sixir oo asaga aaminsan yahay inuu ilaalinayo ay korkiis ku soo tashay Bashiir isla markii dhaqtar loo wacay wixii korkiisa ka buurnaa waa laga soo qalay sixir ay noqdeen ku soo qarsaday a'uudu billahi min shaytaan rajiim المهم wuu qirtay markii wixii laga soo bixiyay askarigii qalinkiisa caadi u qabsaday qoraalkiisa toos u qortay Bashiir warkii oo dhan laga qoray wuxuu ictiraafay iska dhaaf saddexdan qof uu dilay wuxuu xataa qirtay duqdi 5 sano ka hor la dilay oo wax dilay la waay oo xataa jaan iyo cirib wixii dilay meel ay dhigeen la waay asaga ayaa qirtay wuxuu yiri duqdaas ayaan ka bilaabay saas ayaan wadanka ku soo galay haddana waan baxay waan soo leestay hantidii waan soo laabtay halkaas aan ka bilaabay qisadii oo kaamil ah oo askartu u sheegay Bashiir waxaa lagu xukumay qisqaas waa la qisqaasay halkaas ayuu ku geeriyooday Bashiir dadkiina ku ogaadeen wixii tuulada qasayo dadka dilay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala cadow gacanteen looma geliyo mid noo dhow iyo mid naga dheerbo sheekada halkaas ku dhamaatay sheekada xigto si ay ku dhaafin subscribe dhah gambalaalka furo like t-shirt na ilaabin bye bye